Afrika waa qaarad aad u ballaaran oo leh dhaqamo, afaf iyo dad kala duwan. Halkan waxaa xaqiiqooyin ku saabsan Afrika fadlan intaynaan channel-ka u guda gelin, waxaan kaa codsanayaa subscribe noo saarto channel-ka, like-taaduna waa noo sharaf. Afrika waxa ay dul martaa dhul-baraha iyo meeriska Primor. Afrika waa qaaradda keliya ee ku fidsan laga bilaabo kuleylka waqooyi ilaa aagga kuleylka koonfureed. Inta badan qaaradda iyo waddamadeedu waxay ku yaallaan waqooyiga Hemisphere, oo leh qayb la taaban karo iyo tiro dalal ah oo ku yaal Hemisphere-ka koonfureed. Afrika waxa ay leedahay 54 waddan, waddan kastana wuxuu leeyahay dhaqan iyo xeer u gaar ah. Dhanka kale haddii iska taagno, Afrika waa qaaradda labaad ee ugu weyn adduunka. Waxay khubarada caalamku ku qiyaastaa Afrika 30 milyan oo kiiloomitir in ka badan oo isku wareega. Afrika waxa ay ka weyn tahay waddamada Shiinaha, Hindiya, Mareykanka iyo inta badan waddamada Yurub oo la isku daray. Dhanka kale haddii iska taagno, Saxaraha Afrika oo keliya ayaa ka weyn qaaradda USA Mareykanka. Afrika waxa ay leedahay ama laga helaa in ka badan 25% noocyada shimbiraha adduunka. Afrika waxaa lagu tiriyaa qaaradda adduunka ugu faqiirsan, iyadoo kala badh dadka ku nool Afrikada Saxaraha ka hooseeya ay ku nool yihiin heer ka hooseeya heerka faqriga. Afrika waxa ay hoy u tahay luqado badan oo ay ku jiraan Carabi, Ingiriisi, Swahili, Faransiis iyo Isbaanish. Qiyaastii in ka badan 25% luqadaha lagaga hadlo qaaradda Afrika lagama hadlo caalamka intiisa kale. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan aad daawatay. Fadlan subscribe noo saar channel-ka. Aad iyo aad ayaad mahadsantahay.